نعم هل من قرار الزوج من الإنجاب من حق الزوج والزوجة حيوان كواساس معناها إلما إن دلما حق ونك ليها مس حق ولا ليها taas waxay ku xiran tahay ittifaaqa labada qofood shariicada ilmo in la dhalo oo binay ka dhigtay waajib rasmi ah lagama dhigin marka hadduu gabadha ninka guursado uu rabo inay ilmo u dhasho waa inay ilmo u dhasho hadaysan markaas isu ku filnaan kale inay ilmo dhasho ay rabin مثلا gabdhaha qaarkood waxay sameeyaan daawooyin cunaa ninka way ka qarnaysa ilmo inay dhasho ma rabto ninkii inuu qaban way rabtaa ninkii laakiin inuu ilmo loo dhalo rabaa taasoo kale waa khiyaano lama ogola sharcan مثلا ninkii hadana asna inuu ilmo dhala aan rabin oo مثلا ilmo badan u jooga ama waxa xanuunsan yahay gabadhu uu ka qarinaya marka ama gabar yar loo keenay gabadh inay dhasho rabta asaga waa weyn yahay inuu ilmo dhalo ma rabo marka taasna waa inuu gooyo kaleento waa marka labada qofood waxay ku xiran tahay gabadh inay ilmo dhasho in asaga ilmo dhalo ittifaaqiya in la isku afgarto marka hore la wada hadlayo haduusan asaga ilmo inuu dhalo uusan rabin waa inuu guursado gabar ilmo dhalin sax hadaysan iyada inay ilmo dhasho rabin oo inay ninka ilmo u dhasho aysan rabin waa inay u sheegtaan ninka aan ilmo hadda dhalo ma rabo ama ilmo waa ii joogan qof aan weheshad bas araba waa inay u cadaysaa marka ninka ama ku galo ama maxay heeto ama iska daay laakiin qaraarka injaabka labada qofood inay wax isu dhalaan in wax la dhalo sharciyada way amaantay way fiican tahay qof kasta waa jecel inuu wax ka tago farax ka tago oo ilmo la'aantu ma fiicno laakiin mar waxa jirto ilmo ku joogan ilmo kale inaad dhashay mas'uuliyad kale inaad qaado aad rabin mar xanuun duruuf caafimaad ay ku haysato مثلا ilmo gabadh ilmaheed isku nuug fara badan ay noqdeen way yar xanuunsan tahay bareegir inay qaadatay rabta asagana ilmo kale loo sii dhalo raba marka taas oo kale waxa marka in labada afkar uu jiro ama sanadkan ilmaha aan kala dheereysan hoga maxay tahay waqti bareeg kala kala gelisi gabadha u nasato caruurtana waqti loo kala helo quraanka taa u cabir nuugmada markii la laba sano waalidatu yurdicna awlaadahunna hawlayn kaamilayn liman arada an yutimma radaa labada waalid gabdhaha waxay ilmaha nuujinayaan laba sano laakiin qofkii rabo qofkii marka injaabka wuxuu ku imaan karaa labada qofood inay isku afkartaan ama ilmo waa isku dhali karnaa ama ilmo isku dhali karnaa ama sanadka ilmo ma dhali karno sanadka kale ka dhiganayna waa ayaga ku xiranta ayaga ittifaaqiyo waa inay jirtaa ama rule dhex yaalo waqtiga ilmo la dhalayo iyo waqtiga ilmo la dhalayn iyo in la total ilmo in la dhalo inaan la rabinba laakiin waa guurka ka hor labadood markay is shukaansanayaan inay ka wada hadlaan مثلا taamaka مثلا gabdho badan maxay ahayd guriyada ku dumeen ama ninka ku qayaanayso inay lacag ka qaadataan weerta inuu beelano weerta inay ilmo dhashay inay mas'uuliyad qaadana ma rabto waa khiyaano marka waa khiyaano iyo lugooyo oo ninka ay ku sareys ama daawooyinkii wixii arbadaha la gashana wixii isticmaalaysa waxay ka cararaysaa ilmo inay koriso oo hooyo noqoto ma rabto inkana dhaqaalina ka qaatay rabta marka waa khiyaano noqonaysa ama asagii laftigiisa daawooyin cunaya heer kale u jooga xaaska kale ku xisaabtamay tan wuxuu rabaa inuu faakiha ka dhigto gabadhan inay wax dhaqanto ilmaha dhashay rabtaa marka maxay rag badan saas sameeyay xaaska way mas'uul ilaashanaya waxa bas in taas ilmaheedu ku xisaabtamaya tan labaatan saddexaad in ilmuhu dhashay in kanta muhiim ah necessary ma ah marka uu saga ciyaara waqti uu ku baxsanaya marka faakihu ka dhiganaya marka ma rabo inuu ilmo dhalo marka ilmahan kale ku xisaabtamaya taasna way dhacday maalmo gabdho badan marka labada qofood ba hadaa ilmo la isku dhalay ilmo la isku dhaleen waa inay ku xiran tahay is afkar labada dhaxyaal iyo ala ka cabsi qof kale inuu soo gooynin qofkii ilmo dhalo inuu rabo qof ilmo dhalo rabin hadana wax loogu daro waa dhib ama gabadhi ha noqoto ama ninkii ha noqoto inuu meesha ala ka cabsi u shaqeeyaa hadaa rabin ilmo dhasho nina ilmo dhaleen guurso ninka haduu san ilmo inuu dhalo gabar ilmo dhaleen guurso way tuuranta waa helaysa marka laakiin in la isdhakraad qatar oo la isqeeyo xaq oo labada qofood ka dhaxeeya waa qaraar ee shariicada open ay ka dhigtay ilmo in la dhalo labada qofood ku xiranta wax kugu qasbay male qofka wax ku darsanayso waa inuu cadeyso ani ilmo inaan dhalaan rabaa saa ma ugu qaadato yes waa ku qaatay ahlan wasaan asagana gabar ilmo idaleeysan rabaa naga ilmo dhalay ma rabo waa nimanka u badan yihiin marka laakiin in la isku qariyo waa mid marka ka dhalanaysa laqdawada oo qofkii inuu mas'uuliyad qaado ma rabo inuu ilmo dhalo ma rabo hadana qof kale intuu lugooynayo oo dhibaya ma la ogolo marka ma la ogolo shariicada injaabka wax dhalmada waxay ka dhigtay shay oo bina oo labada qofood ku xiran laakiin haddiiba ma taqaanaa mararka qaar Soomaalida marka aad fiiriso macallin fartuunay ayaga ma taqaanaa soo labada qof markay isguursadaan ayaga go'aan ka gaaraya gabadha maxay u dhali laadahay maxay u socotaa qoyskii waa faraha laga taa waa duruuf rabbaaniya waa taas oo gabadh inay wax dhasho weertaa laakiin Ilaahay ma siinin waa la marka reerkii faraha laga la jarrug markii lagu yaqaan Soomaali marka oo gabadh maxay wax u dhali laadahay mid ilmo gabadheena ee dusha ka saar dusha laga saar ninka xitaa haduu xanuunsan yahay mar walba ayaga ku asalayaan gabadheena waxba dhali karin marka cilada tahay iyada waa la sabarsiina waxa la iska dulqaadaa adduunyo waaye alle dhib ma lahan leeyahay idan inay wax dhashay rabtaa marka laakiin marka ayada cilada tahay
وأساق وفيويا ما كان لقى ما فريسان كرو فمن كودن وير عرك أيدو كلا جور اللي سوقادا وما كان لهم كبار واحدة لهم حين أجا حين سبب naagtana kugu ما daray كلا كوجو درنا أيضا واحدة لنا هو هيسان كرا ما برا حالك مجنون أيضا واحدة لنا لما حاسني ما هذا هو أقول شيء وكو هيستو وأنا محي تكلا دالي سأقول سده بس لكن لا أيضا يوصل ضيعين hadday iyada ogoshahay inay la joogto أنا هذا oo iyada naftirkeeda way iska nasiibsan kartaa هذا ده نصيب سنة يا ولا نقل فوزة أهلا وسهلا حسيت دايما تكلا أيضا لو إذا قفك المهد وجرى على غيابة قدرت وجست قفك وجست قفك إذا هنا قفك لله وقرأ وأدعي كرتها لكن مركز طبعا إنجاب لو قف وذا كحرنت هاي عشان عادوا حكاية الشيء مفتوح marka maxaa la yiraahdaa gabdhaha horta uma badna Soomaha fartuuna inay dhahan horta gabar walba gabdhaha badankood waxay rabaan inay dhalaan ها مركز يريرتها هاي markay yarta marka yarta inaad dhashay diyaar u tahay laakiin markuu ninka weyn yahay marka uu san rabin inuu wax dhalo oo lagu siro marka hadana gabadha lagu qayaano marka waa dib kaliya injaabka guriga uu ilmuhu waa ubax qurux waayo hadii ilaahay ku siinayo oo korsan karto لا مانع عندكم مديدس لكن دا adina dhashay aad rabin qof kale la gooyin aad iyo aad u mahadsantahay macallin fartuuna sida wanaagsan oo qodobkaas ay noo la wadaagtay tan kulanta dambe asxaabta sida iyo nabadgelyo